magacaygu waa Caaisha Cali Maan Cabdullaahi waxaa ka mid ah ardayda qalan jabin jaamacadda Hormuud hadda waxaan dhisay dhismaha iga dambeeya gurigan wuxuu ka kooban yahay 3 dabaq laakiin waxa uu dhisaan gareena ugu talagalay inuu maaragtay uu noqdo meel loo deegaano عند الاسمها محاوقة بالسنة هاي أستاذ وشيسر وين جيران كلية بدنا هروس وجبجبي هروس ورسي هل كان محاوقة العلم كبنية مع الثقة صور شقي أرض سوق الانجبية أو جانس كسية جارهان هبلا سوق الانجبية كسوق الانجبية اسمها جانس كسية كرسيني ده أدنى ومن العلم maadaama uu yahay maaragtay wadankii wadan soo koray uu yahay isma badan u baahan yahay kabiniyadu maaragtay door weyn bay ka qaataan inay maaragtay siiyaan jaanisyo si ay u helaan aqoontooda iyo dhismahooda mana maasiin jaaniskaas ay siiyeen si kooban waxaan leeyahay aan ku soo jeedinayaa gabdhaha baranaya ama rabo inay bartaan ama bartayba inuu jaanisku maaragtay ay ka faa'iideystaan magaalada idin baahan dhismaha idin baahan aqoontu lama kala xiga maaragtay waa sida meesha aad u aaminsan tahay sida u gasho marka waxaan leeyahay leeyo quusan maaragtay magaaladu way koraysaa way kobcaysaa ismayaal badan ay imaanaya waxa si gaar ah u celinayaa jaamacadan maaragtay ku soo indha qaaday waxa ku bartay maanta heerkan soo gaaray ka dambeysay jaamacadda Hormuud baa u celinayaa waxaan u celinayaa maamulkooda macallimiintooda sidoo kale waxaan u celinayaa ardayda class ka fadhiisanay isku fasalka aan ahayn dhamaantood u celinayaa waxaan u celinayaa ay aqoontii iyo maaragtay waqtigiina soo galiyeen waan rajaynaynaa maqan dad kamira dhaliyo maaragtay dadalkaas maaragtay wax ka soo saara ayna kuna anfaca maaragtay dadkooda iyo dalkoodaba wixii waqti la soo galiyay maaragtay ay yeeshaan natiijo oo maaragtay muuqata oo celinayaa sidoo kale jaamacaddu waxay ka mid tahay jaamacadaha maaragtay ugu horeeya dhanka engineering-ka magacaygu waa Cabdullaahi Cabdikariin engineer Cabdullaahi Cabdikariin waxa ahaa engineer ka tirsan company-gan asaaska construction company Aisha engineer Aisha waa engineerada kamid ah company-ga waxay noo qaabilsan tahay site supervisor waa engineerid ku safaysan karti akhlaaq wanaag iyo meesha looga baahan yahay nin rag ah inuu taagnaado kale inuu taagan tahay waxa gabdhaha Soomaaliyeed kula talinaa rabo inay bartaan cilmiga engineering-ka inay kartidooda soo bandhigaan bartaan cilmiga engineering-ka sidoo kale Aisha waa qof mar walba garab taagan gabdhaha Soomaaliyeed ku dhiirigelin lahayd inay bartaan cilmiga engineering-ka mar walbana kambaniyada Soomaaliyeed waxay garab taagan yihiin inay garab qabtaan gabdhaheena Soomaaliyeed sidoo kale waxaan ahay asaasa iyo makiinaha shirkadda Bill Home Service shirkadda Bill Home Service waxay kamid tahay shirkadaha ku yaala magaalada waxay jirtaa muddo sanad ah adeegyada qabato waxaa kamid ah adeegyada oo maaragtay insaanka ah shaqadaha dhismaha sidoo kale waxay qabataa qaybaha korontada iyo biyaha iyo maaragtay si kale loo dhaho electrical and plumbing engineering waxaan rajaynayaa inay xaqabtir u noqon doonto baahi badan oo bulshada ay qabto sidoo kale dhankan dumarka waxaan rajaynayaa inay sii doonto maaragtay siino aan jaanisyo maaragtay ah inay helaan adeegyadooda iyo maaragtay wixii ugu baahan yihiin rajaynaya inay noqon doonto maaragtay meel dumar badan ay wax ka bartaan kana faa'iido ama ku shaqeeyaan